وحلا أويا وحلا أويا وحكلا ما وحلا أويا ودنك أنا كاني إن أنا كان بقى ونك سالة صومالي يقول أنت صومالي هدور بقاش هقول أنت هدور بحبة أردس هدي حق ويا جيردو لكن خوف أد كنتي أونول أد جيري ينور الله هدونك كودر خوف كاجا ميل كجرا الأجي لقو شيئين وادي ما تأدو يوي دار الله يودرين كجوك إلهي وحن ويدي سن صومالي أنت مغن أو بعد ذا كم مغن إن إلهي بعد ذا صاحريو أنت هو يمعان يا أب معان ويل ميزن أكم قيا إلهي إنه بعد ذا سود ويا إلهي كبري وحن إلهي كبري أنت لقى هايست حبسية ذا كتشت أنت لقى هايست حبسية ذا إلهي إنه كسود دايو هو يوينك المهود مقيين لقى هايست إلهي إنه كسوفر دام يماشي لقى هايستو بالله عليكم وحق رنكرة قفك بالآذنك دريم له أيا قرن كرا أنيو كريمو مدلين هوستيدا لغما سو قادين waa walaalkay yaraana laakiin aabahay markuu dhintay 30 habeen uu wiilka jiray 30 habeen uu jiray bil magaarin bil buu jiray astaghfirullah bil buu jiray hooyadiina waxay ku dhimatay 2 sano isagoo jiray intaasan korinayay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan magacaygu waa Xuriye Sheekh Cabdiraxmaan waxaan baafinayaa oo iga maqan wiil walaalkay ah da'diisuna ay tahay 34 wadanka anaa keenay isagoo 18 sano jira wadanka keenay hadda da'diisu waa 34 jir miisina iga yahay oo iga maqan yahay dadweynaha Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan ka codsanayaa ninkaas qofkii arka markii iigu dambeysay waxa la iigu sheegay Chicago gudaheeda inuu ku nool yahay ayay ii sheegeen booliska Chicago ay dhaheen 2 bari ka hor ayaa noogu dambeysay markii aan dhahay waxaan u baahanahay bal inaad waxa ii sheegtaan dhibka ma asaga boolis idin yimid oo ama dhib geystay ama dhib loo geystana waxay dhaheen informationkiisa ma ku siin karno ninka da'diisu waa 34 jir saa daraadeed waxba ma kuma bixin karno anigi marka qof maqan oo geerina aanan ku ogeyn nololna aanan ku hayn warwarkiisa waan ka seexan waayay maadaama aniga wadanka aan keenay oo yaraanka aabahayna dhintay agoon iyo ranjo aan ku soo korshay aabii sadana been asagoo jiro dhintay hooyadiina 2 sano saadaradeed waan murugooday markaan waayay bishii Agost ayaa ninka la waayay Agoostadii hore tagtay 20gii ilaa Agoostan 21 waa 1 year ilaa 3 bilood extra oo dheeraad ah ninkaas wuxuu ahaa markiisa hore nin wanaagsan oo shaqaysta oo sharaf badan inkastoo iskuulka drive grade galaaska 12aad uu ka drive grade markuu saa wadanka u yimid isagoon 7 bar joogin biir warshadahan aadaya nin maaragta hard worker ah shaqaysta oo maaragta 7 year shaqeeyay kadib xanuunka dhimirka yara dhacay xoogaha uu yara xanuunsaday oo madaxa laga galay isbitaalkan Henebin ayaa cadeeyay inuu xoogaa mental haysto daawooyinkiisi bacdaanay ku jirtaa daawooyinka halkan ay ka buuxaan miyaablis xataa uu ka carray mar meelahaas uu carray oo maaragtay nabar asku carray waan ka daba tagay waan soo qabtay waan soo celiyay wuxuu tagay oo jeclaystay inuu macnaha ka baxo arintan dhan ka baxo rabay wuxuu ka cararayay soo ii sheegay wuxuu tagay Istimulin aan u maleynay inay ka tirsan tahay Chicago siri ah inay tahay halkaas uu 8 bilood si sharaf leh ugu noolaa salaadiisa tukanay everything okay u ahayd adigu hadal dheer kadib ninkaas wuu xanuunsaday sonkor buu haddana yeeshay 900 gaaraysa oo waalidii u sii badisay dhakhtar bay martagay oo ka soo baxay oo dambeyn 8 bilood halkaas markuu ku noolaa iska dhaqaaqay marka maalintii u dambeysay waa la waayay wadaad baa marka oo la noolaa oo la joogay oo oday oo familigayga ah wuxuu dhacdar waa iska tagay Minneapolis walaashiyaan ku noqonaa saasa lagu ogaa odaygii markuu iska xanuunsaday asagana anigana hooyaday ay xanuunsatay wadnaha laga qalay duq waayeelo 9 jiraan guri ku hayaa wiilkii sa u raadiyo on laba isugu qaybiyaan garan waayay dad wadaadkii markuu isheegay wiilka bil maqan
oo dhahay intaan wacay warwal ka waran Seeyo Cabdullaahi Fiicin shaqo bilaa bartam iskuul ma u dirtay wiirnimaba hayay bilbo soo maqay miyuusan ku imaan walaashii u tagayaa Minneapolis bay ugu yiri dan imaan wiilkii maxaa wiil bil an qof maqan si adeer u sheegays alxasil istaalam galaanaba kale leega qabtay ugu dhahay hadal dheer kadib anigii marka waan baxay October August September iyo October iyo November hooyadii dhakhtar kula jiray November 4teedii ayaan doonay mulin baan tagay wadaadkii baan haye maxaa haysaa macluumaadka daawooyinkiisii wixii iyo waraaqihii xilliga u dambeeyay waxaan ku information maxaa haysaa ninka markuu ka tago u dambeysay wuxuu yiri boolis u yarta markuu baxay oo taxi ugu yara ma loo baaha xilliga xumaa oo kufeenka bilowdona wuu ahaa adigu booliskii ma aqaan wax ku hadleen anuu reemi baan ahaa Ingiriisna ma aqoon buu yiri wiilkii baabuur u raacay booliskana way wada hadleen okay maalinta markii waxaan sameeyay booliskii aan wacay police hal ii wacay boolisku wuxuu ii sheegay wiilkaas inay mar dhakhtar geeyeen asagoo xanuunsan oo iska socda suuqa dhakhtarkina uu ka soo baxo adeer la yiri dhakhtarkan waan ka soo saarayna guriga ma keenaha ku soo cesha waa isla bisha ku horeysa la yiri hadda iyo dan buu dhahay ninkii seerka ahaa oo markaa jooga shaqada ku jiray wiilkaas haddaan ii kaadi wax yar ugu dhaw waan sugay wuxuu galay kombiyuutarradii wuxuu wiilkaas miisan ma aha jeelka nagana kuma jiro hospitality ma dhakhtar ma jiifo wiilkaas inuu nool yahay umalena bal aan weydiiyo gobolka weyn oo Chicago ninkaas inay hayaan maadaama warbixintii adeer hadda ninkan odaga oo la noolaa oo ankalkiisa uu leeyahay habeenkii u dambeysay uu baxay asaga baxay xataa boolis uu waxaan odaga ma sheegi karo iyo maaragtay beejka iyo wax dacway dhib ma jirin hadda waxba ma sheegi karo laakiin halkaas waxa ka cad oo xataa nin dariska oo Suudaani ah ii sheegay saaxiibkay ahaa oo isla shaqeyn jirnay nin fiican oo ahaa habeenkii markuu baxay xaadir ahaa bas intaas wadnisa markay ii sheegeen okay Chicago ii weydii please Chicago dii weydii ugu dhan 10 days before أنا وجودن بسنينكاس ونولي جكاك إنسيت كوجرا بس وحين قلت لي بوليس قلت لي إن عن دونه ما أنت سأندونا هو نوفمبر 4 بيهيد ما كان فوت كودن بيو ترى ما أنت بيهيد سيدي بانجارك وقاتوان بحي هالكيبان تجي أدو جكاك دي بيتل ما بجكاك تو أوري مش وجت مولين استمولين وايه وان تجي دن مركان تجي dadkii booliska aan la kulmay sidoo kale informationka inay waxba isiyaan weydiin waxay dhahan waliba 10 days bay ku dhaheen qoladii booliska Minneapolis estimulen bay soo dhaheen anigana waxay ku dhaheen 2 days agoon ugu dambeys okay ninkii wuu nool yahay marka wuu nool yahay maxay u raadinaysaa muu soo raadsada walaalkii wuu waalan yahay waxaanu daawuhu qaataa haddana qashinkii buu ku sii daray waxba ma oga bilis i caawiya ما كو عاون كرنا لنا مع سلامة أدلتي وايه teenager ما سوري سيدي بان كسو بحي حتى الصعد كأن صعد أيها كسو بحي أكسدنا انقلي وقاري أيها بربري على كل حال سيدي بان يدي دو كحماتي دولدي أنا أطبع عاون ويدو قفكنا أنا كسمري كرنجيري إنه قفك ودو كاد انت واتسمرتا لكن قف نول oo aan lagu sheegin maba xataa haduu qofku nool yahay maba araastan dukurban laakiin noloshiisa ka dhacay 19 kofeenka dhacay kofeen 19 ka dhacay qof kasta iska dhintay ma gidaarkii ku dhintay ma dhakhtarkii ku dhintay xataa geeridiisa haday arkaan even inay sheegaan xataa inuu active yahay social security xataa kaliya hadii la sheegi lahaa wax dhan bay iyaan si alla si aan wiilka u helo xataa hadaan ogaan lahaa active meel ka yahay social security because waa la caawiyaa markuu meel tago ama group center lagu caawiyaa ama haday doonaan qol haysato oo representative oo ah oo maamulayso oo maaragtay haysato oo capture garaysanayso kuwa madowga qashinka waxay ku aruursanaaliyay guryaha ku xareystaan dadka hadhoona la fiisa doona soo tuuraan social security kaliya hadaan ogaan aan heli lahaa oo lawyer heli lahaa oo legal aid oo ila caawiya oo qofkaas meesha socialkiisu ka shaqeynay sagaalka lambar meel buu ka shaqeynayaa inta wax dhan bay ii ahaan lahayd haddaba walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa sharafta leh say dadka ugu gurmadaan oo u caawiyaan oo meel walba u taagan yihiin waan ogahay waana arkaa anigana wax ka caawiyo inta jiran marka la soo baafiyo halkaas aan lambarka ka arko waligii Soomaaliyu ka yahay ma oran please Soomaali waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan
inay wiilka ila baafiyaan dadkii warshadaha nabar aska ka shaqayn jiray ayaa yaqaan cabdullaahi shoodhe ayuu ku magacaabna nin yara gaaban buu ahaa laakiin tilmaan markaan ka bixiyay midabkiisa midab cas buu ahaa nin social ah oo dadku la shaqaystay dadku la noolaaba saaxiib la ah oo dadku jecel yihiin buu ahaa nin shaqaysto macnaha wanaagsan buu ahaa marka hadalkii waan idinku dheereeyey cabdullaahi cabdi baa la dhahaa dadka nabar aska iyo meelaha maaragtay gobolkaas meesha warshadaha lo'da dadka ka shaqaynay way yaqaanaan cabdullaahi cabdi shoodhe oo ku magac dheeraa ninkaas lama hayo Soomaaliya geeri iyo nolol intii taqaan ama la shaqaysay ama reer Minneapolis dhalinyarada kolley way is yaqaanaan qolooyinka group home ku jira qolooyinka suuqyada garameel Cedar 24 iyaga xataa waxaan ka codsanay ninkaas inay soo tabiyaan oo soo sheegaan haday arkeen caawiya please caawiya ninkaas meel ma aragtay hal igu soo sheego ilaahay idinkiisa halkaasaan kaga baxay walaalow cabdullaahi oo hadaa nooshahay iyo hadaa dhimatayba ifka hadaa saaranta xurriye sheekh cabdiraxmaan kula hadlaysa walaalow soo hadal walaalay waa noolahay dheh taleefankayga hadaan sheego waa 612 458 1854 mar labaad hadaan ku cesho waa 612 458 1854 please and please cabdullaahi hadaan nooshahay hal sano iyo 3 bilood baad maqan tahay walaalo waxaad ku maqantay ma naqaan noloshaada kaliya rabnaa inaan helno shaqo kuma dirsanayno go home kuma sameynayno wax aan ku dirsanayno waan ka seexan way khaas aan aniga iyo maxamed waan ka seexan way 9 saac baa hurdada iga tagta warkaaga aan helo hadaa duca rabtid cabdullaahi aaba kuma korin hooyo kuma soo korin abti kuma soo korin adeer kuma soo korin family kuma soo korin inta wixii ku wada qaxootinimo kugu wada wax ku soo barhay meel kasta 10 sano isagoo jiraan quraanka u dhameey oo 2 jeer oo ku naqtiimay inta arin sameeyay Nairobi iyo dariiqadan la soo taagna please wiil mali gabar mali da'daasaan jira waxaa la ooyaya wax kala maaha waxaa la ooyaya wadanka anaa keenay inaana keenin ba ii wanaagsan leedahay Soomaaliya iigu dhinto Soomaaliya hadduu raba gaajo ha ugu dhinto hadduu raba xabad ordays hadisho xaq weeye geeridu laakiin qof aad keentay oo nool od geeri iyo nolol Allah adduunka kugu daran qofkaaga meel ku jiro la ogyahay lagu sheegeen waa dhibaato adduunyo weey dadaal lahay waa dareen ku joog ilaahay waxaan weydiisanay Soomaali inta maqan oo baadida ku maqan in ilaahay baadidooda soo xareeyo inta hooyo macaan يا أبا معان ويل ميزن كم قيا إلهي إنه بعد ذا سود ويا إلهي كبري وحن إلهي كبري أنت لقى هايست حبسية ذا كتشت أنت لقى هايست حبسية ذا إلهي إنه كسود دايو هو يوينك المهود مقين إلا لقى هايست إلهي إنه كسوفر دامي ماشي لقى هايستو بالله عليكم وحق رنكرة قفك بالآذن دريم له أيا قرنكرة أنا كريمو مطلين هوستي ذا لقى مسوق هذا ولا الكيرانا لكن أباهي مركو دنتي صدن هبينو ويلكا جري صدن هبينو جري بالمقارب بالأم جري استغفر الله بالبو جري هو يدينا waxay ku dhimatay 2 sano isagoo jira intaasan korinay waxaan ka ooyaya maxaad u keent waan ka shalay Mareykan baan keenay ana soo sponsor inaan tabaas u gada ama hindi wax barasho ama masar wax barasho igu aada iga wanaagsaneed maanta iyo maanta inuu dhintan gaaridiisa maqlo iyo inuu nool yahay noloshiisa maqlo walaalayaal Soomaaliya caawiya ilaahay ha idin caawiyo ninkaas leela baafiyo haleela raadiyo lawyer legal aid ninkii heli kara ha isoo baafiyo ha isoo sheego xurriye cabdiraxmaan leedahay sheekh cabdiraxmaan leedahay miya bulis suuqa 24 kan dukaan kula han jiray garameelka waa leega yaqaan Cedar waa leega yaqaan waan deganaa 7 sano 8 sano deganaa maragtay saasoo kale 24 waan deganaa oremiya blis Franklin aha dadkii horeeyay wadanka yimid baan aha please wiilkaas garab hal laga siiyo sidii la ii caawin lahaa sidii loo heli lahaa geeri iyo nolol ilma adeerayaal Soomaaliya waa kaasa waa idin fariin meel kasta taleefankayga halkaas ku jira hal la isoo waco waa mahadsantiin deeq
ilaahay ha ku darajeeyo awal baa deeq darajo lagu yiri darajo ziyaada allah ha ku siiyo biidni illaahi kariim ilaahay maaragta idaacadaada asa kugu caawiyo ilaahay garab iyo gaashaan ha kugu noqdo walaalo waa kuu ducaynana sida wanaagsan oo sharafta badan oo Soomaali maaragta ay u caawiso waan badiyaa hadalka raalli iga ahaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tacaala